farmaajo madaala maduulo badaayna oo dulmigu uu dhammaaniyo oo daacada ayma war dulmigu uu dhammaaniyo oo daacada ayma oo dalkiiyo caalanka hadhiye doodaya albay oo farmaajo waa la dooran doonaya aan la diin warkan waa mid aad ku farxad gelin doona haddaad taageertid xabiibul malaayiin maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii ugu daacadsanaa ee Soomaaliya soo mara burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya kadib madaxweyne farmaajo oo caafimaadkiisa si toos ah u soo hagaagay kadib markii warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ay daabacday in xaaladda caafimaad ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo xaaladiisa ay si toos ah u soo hagaagtay rabbi subxaanahu wa ta'ala waxa uu aqbalay daawadayaal ducadii aad halkan uga baahinayseen madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo inuu ilaahay caafimaadkiisa siiyo waa ka oo waa uu caafimaad qabaa muqdisho ayuuna ku tamashalaynayaa xanuunkii yaraa ee xalay qabtana dhaqaatiirtiisa caafimaad oo ah kuwa aad u feejigan isla markaana si weyn markaas ugu fiican arrimaha caafimaadka ayaa xaaladiisa caafimaad la tacaalay eebaweynena waxa uu si gaar ah u aqbalay ducadii aad halkan ugu soo bandhigteen inuu caafimaado madaxweynihii ugu daacadsanaa ee Soomaaliya soo mara burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya kadib xabiibul malaayiin maxamed cabdulaahi farmaajo iyo booqasho la yaab leh oo muqdisho haatan ku marayo maadaama madaxweyne farmaajo uu caafimaadkiisa si taam ah u helay dhammaantiin waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalkan like tala dhacdaan waa war farxad leh inuu caafimaado madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo isaga qudhiisa ayaa boggiisa Facebooka waxa uu ku qoray in xaaladiisa caafimaad ay caafimaadkiisa si weyn u soo hagaagay waxa uuna walaalaha Soomaaliyeed si gaar ah markaas ugu mahad celishay sidii dhiirinaanti lahayd ay uu garab istaageen xilligii uu xanuunsanaa maadaama saacadihii ugu dambeeyay xaaladda madaxweyne farmaajo si weyn looga dayrinayay qaybta hoose ee commentiga hal mar inuu ilaahay caafimaadkiisa si toos ah u sii dhamaystiro ugu qora idinka oo si gaar ah markaas u farxaya maadaama kooxda damul jadiid ay isku dayday in ay war propaganda ah nabad iyo nolol ay ku kicido taasi oo ay ku sheegayso in madaxweynuhu uu dhintay walow wararka qaar ay sheegeen in ay markaasi xaaladiisa caafimaad ay si gaar ah u sii liidato waa sida ay baahiyeen kooxda haatan wadanka la wareegtay ee maafiyada ee damul jadiid YouTube-kan xaqiiq TV waxaan kaa codsanayaa mar waliba waxaynu garab istaagannahay oo si gaar ah u garab taagannahay xabiibul malaayiinkii ay ummaddu jecleed maxamed cabdulaahi farmaajo fadlan subscribe inugu dhiiri oo YouTube-kan subscribe saaro adiga oo gambaleel ka furanaya si aad u hesho wararkii iyo warbixinadii ugu dambeeyay ee halkan aynu ku baahino waxaan si gaar ah maalmaha soo socda aynu indhaha ku gudi doonaa kooxda maafiyada ah ee wadanka la wareegtay ee damul jadiid iyo daljir villa Soomaaliya waxa ka soconaya maadaama xaaladda villa Soomaaliya ay si weyn u qasneed tan iyo markii uu ka baxay madaxweynihii ay ciidanku jeclaayeen madaxweynihii ay shacabka Soomaaliyeed jeclaayeen madaxweynihii ay ajaanibtu jeclayd waa xabiibul malaayiin maxamed cabdulaahi farmaajo rabbi subxaanahu wa ta'ala waxa uu aqbalay ducadiina waa ka madaxweynihii oo dhoola cadeynaya isla markaana xaaladiisa caafimaad si weyn ay u soo hagaagtay waad ku mahadsantihiin daawade sida aad noo dhiirigelideen oo aad YouTube-kan subscribe-ka aad u saarteen gambaleelkan aad u furateen iyo sida aad muuqaalkan like u saarteen oo aad madaxweynihiina u garab taagan tihiin aynu ku bilownay waxa xaaladiisa caafimaad soo hagaagtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo dhawaan si weyn uga xanuunsanayay hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa waxa ku dhacay xanuunka gaas calooleedka oo uu markaasi la xanuunsanaa habeenadii la soo dhaafay sida aan warbixinadii hore idinkula wadaagayba madaxweynaha ayaa xaaladiisa caafimaad si weyn u soo hagaagtay saakay abaara 4 saac oo barqanimo ayay dhaqaatiirtii caafimaad ee madaxweyne farmaajo la tacaalaysay xaaladiisa caafimaad waxa ay sheegeen in madaxweynaha xaaladiisa ay si weyn u soo hagaagtay iyadoona bulshada Soomaaliyeed uga mahad celisay sidii markaasi hagar la'aanta lahayd ee uu garab istaageen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo xabiibul malaayiin maadaama shacabka Soomaaliyeed dhammaantood ay si wadajir ah ugu duceeyeen inuu ilaahay caafimaad taam ah uu siiyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo wali qulubta Soomaaliyeed ku dhex nool farmaajo oo hoygiisa ku jira ayaa xaaladiisa caafimaad si weyn loo dabiibay dhaqaatiirtii caafimaad ee madaxweynaha xaaladiisa la tacaalaysay mid kamid ah ayaan ka soo xiganay hadalkan madaxweynuhu waa uu caafimaad qabaa gaas calooleed ayaa ku dhacay balse la tacaalid aan la tacaalnay iyo shacabka Soomaaliyeed oo u duceeyay ducadoodii ayuu ilaahay aqbalay sidaa darteedna haatan madaxweynaha caafimaadkiisa waa okay oo waxba kama qaldana waana uu caafimaad qabaa waa ka oo waa uu dalxiisaya ayuu yiri mid kamid ah dhaqaatiirtii caafimaad ee madaxweyne farmaajo xaaladiisa caafimaad sida dhow ula socday
isla markaana hoygiisa ku sugnaa. Farmaajo qudhiisa waa uu hadlay, waxa uuna markaasi si weyn uga mahad celishay walaalaha Soomaaliyeed ee garab istaaga u muujiyay kadib qormo kooban oo uu barihiisa bulshada gaar ahaan Facebook kula wadaagay shacabka Soomaaliyeed. Waxa uu Farmaajo yiraahday qormadaasi sida tan: aad ayaan ugu mahad celinayaa shacabkayga Soomaaliyeed, waxa ay ii muujiyeen garab istaag joogto ah maadaama ay ii aaminsan yihiin inaan ahay madaxweyne hantida dalka ka badbaaday isla markaana si weyn shacabka Soomaaliyeed ugu shaqeeyay. Shacabkayga idima ilaabi doono, waxaad ku jirteen qalbiyadayda, waxaad tihiin familkayga, waxaana ii tihiin wehelkayga gaarka ah. Si gaar ah ayaan ummadda kale idinkaga jeclahay maadaama aad ii ducaysaan xilli waliba oo xanuun isoo wajaho. sidaa waxaa yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si gaar ah ugu mahad celiyay shacabkiisa Soomaaliyeed maadaama ay garab istaag u muujiyeen saacadihii la soo dhaafay ee uu madaxweynuhu xaaladda halista ah ku sugnaa. Kooxda Damal Jadiid ee maafiyada ah ee waddanku la wareegtay waxa ay haatan baahinaya warar propaganda ah ay baahinayaan Damal Jadiid oo ay ku sheegayaan in xaaladda madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka sii dartay, iyaga oo markaas ula jeeda in shacabka Soomaaliyeed ee Farmaajo taageersan ay marin habaabiyaan isla markaana ay taageero u fidiyaan kooxda Damal Jadiid shacabka Soomaaliyeed. balse shacabka Soomaaliyeed oo la socda khiyaanada fog iyo midda dhow ee kooxda Damal Jadiid ayaa si weyn uga soo horjeestay hadalkii goordhaweed ka soo yaray Villa Soomaaliya oo Damal Jadiid ay haatan xukunto. allaha ayaa mahad iska leh maadaama uu caafimaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed oo si dhow markaas ula socday xaaladda madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hambalyo iyo markaasi farxadda iyo bogaadinta isla qaybsanaya, waxa ayna baraha bulshada isku marinayaan sida ay ugu faraxsan yihiin in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xaaladiisa caafimaad ay si weyn u soo hagaagto. Farmaajo ayaa salaadii duhur kadib waxa uu markaasi si weyn ugu tamashleeyay magaalada Muqdisho. ciidamada ammaanka ayaa heegan galay, waxa ayna muujiyeen ciidamada qaranka Soomaaliyeed sida ay weli ugu heegan ugu jiraan ama isla markaana ay u taageersan yihiin madaxweynahoodii hore oo mushaaradkooda meel u saaray. madaxweynuhu waxa uu maray hoteelle ay ka mid yihiin Hotel Ilid ilaa iyo xeebta Liido ayuu markaasi socdaal ku tagay. xeebta Liido iyo Hotel Ilid waa ay isi saaran yihiin oo sidaa uma kala fogo. madaxweynaha ayaana socdaal ku maray, waxa uuna shacabka Soomaaliyeed la qaybsaday farxadda maalinkan gaarka ah maadaama xaaladiisa caafimaad si weyn ay u soo hagaagtay. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed sidoo kale kula ballamay inay la shaqeeyaan dowladdan cusub ee haatan dhisantay ee uu horjoogaha u yahay Xasan Sheekh Maxamuud, hogaamiyihii hore ee kooxda Damal Jadiid, haatan ah shakhsiga ugu magac weyn ee kooxda Damal Jadiid. madaxweyne Farmaajo waxa uu shacabka Soomaaliyeed uga digay inay qalqal iyo qalalaaso geliyaan waddanka Soomaaliyeed, isagoona markaasi si gaar ah ula dardaarmay inay la shaqeeyaan dowladoodan cusub. Farmaajo shacabka kaliya lama uusan dardaarmin, waxa uu sidoo kale dardaaran hawada u mariyay ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan. waxa uuna fariin gaar ah u diray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, isagoona si weyn markaasi uga mahad celiyay sida ay furumaha u joogaan oo ay cadowga argagixisada Al-Shabaab ay ula dagaalamayaan. waxa uuna sheegay in ciidamada looga baahan yahay inay si laba jibaaraan howlgalka kooxda Al-Shabaab ay ku hayaan ciidamada dowladda Soomaaliya, isagoona fariin gaar ah u diray taliyayaasha hogaaminaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. waxa uuna madaxweyne Farmaajo ku booriyay sida hagar la'aanta ah ee dalka ay ugu shaqeynayaan. waxa uuna fariin weyn markaasi sidoo kale uu u diray kooxda markaasi haatan la wareegtay nabad sugidda Soomaaliya. xildhibaan Mahad Salaad haatanna ah agaasimaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayuu madaxweyne Farmaajo waxa uu kula hadlay qadka telefoonka, isagoona Mahad Salaad uga mahad celiyay sida markaasi uu Muqdisho amnigeeda uu sida weyn u xakameeyay. waxa uuna Mahad Salaad uu ku ammaanay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida hagardaame la'aanta ah ee uu dalka iyo qaranka markaasi uu ugu soo shaqeeyay. xildhibaan Mahad Salaad haatanna ah horjoogaha kooxda markaasi ama horjoogaha nabad sugidda Soomaaliya ayaa isna sidoo kale bogaadin waxa uu u diray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Mahad Salaad ayaana yiri madaxweyne Farmaajo si weyn ayuu waddanka wax ugu qabtay, hantida bulshadana ma uusan boobin. siyaasad ahaan waan ishaynay oo waxaan la galay dagaal aad u xoogan, balse waxaan aaminsanahay inuu yahay mid ka mid ah madaxda waddanka Soomaaliyeed soo martay midkiisii ugu fiicnaa maadaama waddanka uu wax weyn ka qabtay. si kastaba xaaladda magaalada Muqdisho ayaa habeenadii la soo dhaafay si weyn markaas u kacsanayd, moobeelada iyo taleefanada ayaana si weyn la isaga dhacaya gudaha caasimadda Muqdisho. walow kooxda markaasi Damal Jadiid ay qorsheynayso in howlgallo waaweyn ay ka fuliyaan 17 degmo ay ka kooban tahay gudaha magaalada Muqdisho.
waxaan arki doonaa wixii warar ah oo ka soo baxa xaaladda farmaajo maadaama haatan uu ku tamashilaynayo agagaarka villa Soomaaliya oo uu markaasi si weyn halkaasi ugu tamashilaynayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaa uu dhamaadka muuqaalkan haddii aad ina wehelisay daawada waxaan si naxariis leh kaaga codsanayaa inaad farxadda la qaybsato madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xabiibul Malaayiin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo haatan xaaladiisa caafimaad si weyn ay u soo hagaagtay adiga oo muuqaalkan like saaraya like-ta muuqaalkan la dhaca waxba idinka dhibi mayso inaguna waxa inoo tahay dardar iyo dhiirigelin qaybta hoose ee commentiga aynu farxadda kula qaybsanno kooxda markaasi nabad iyo nolol oo ah kuwa ugu awoodda badan baraha bulshada oo aynu la qaybsanno farxadda soo noolaanshaha iyo markaasi dib u soo noqoshada madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadaama xaaladiisa caafimaad ay si weyn u soo hagaagtay YouTube-kan Xaqiiq TV waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saarato oo aad qaybta cas aad ka dhigto cadaan sidoo kalena gambaleelka aad furato haddii aad gambaleelka furato waxaad la socon doontaa wararkii iyo warbixinadii ugu dambeeyay aynu halkan daqiiqad waliba ku daabacno fadlan subscribe ka furo si aad u hesho wararkii iyo warbixinadii ugu dambeeyay ee aynu daqiiqad waliba halkan ku daabacno jamaahiirta kooxda nabad iyo nolol aynu si gaar ah ugu mahad celinaynaa maadaama ay si weyn u garab taagan yihiin Xabiibul Malaayiinkii ay ummaddu jeclayd Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tan iyo muuqaalkan kiisa xiga oo aynu daqiiqad kadib soo baahin doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wariyaan dib loo noqoniniyo dalkii aan ogaa wariyaan dib loo noqoniniyo dalkii aan ogaa oo dagaal uuna daashade nuurkaya aan la deem dagaal uuna daashade nuurkaya aan la deem iftiinkii daayinkeen oo noqon dici farmaajo derbino waanan dumi ininabi farmaajo derbino waanan dumi ininabi oo intii dan shisheeya wada tay digni into intii dan shisheeya wada tay digni intan oo intii daba dhilifay doodaniga agudo damirku intuu yaryaayay dabo obtama damirku intuu yaryaayay dabo obtama geesigu madulooba mana daalo daayna farmaajo madaalo madulooba daayna oo dulmigu uu dhammaaniyo daacadda ayma war dulmigu uu dhammaaniyo daacadda ayma oo dalkii oo caalanka hadhiye doodaya aan la bad oo farmaajo waa la dooran doonaya aan la diin